dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war culus ka soo saartay doorashadii ka dhacday magaalada Beledweyne war-saxaafada ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxaa lagu diiday doorashadii degdega ahayd ee maanta ka dhacday magaalada Beledweyne taasoo dib loogu doortay madaxweyne Cabdicasiis Laftagreen iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka Cali Saciid Fiqi. wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegtay in doorashadan ay ka hor imanayso dhammaan heshiisyadii golaha wadatashiga qaranka xeerka doorashada iyo weliba dastuurka dalka isla markaana aan ka turjumaynin rabitaanka shacabka Koonfur Galbeed. sidoo kale waxa ay dowladda dhexe sheegtay in aysan aqbali doonin natiijada doorashadaasi iyo hanaan kasta oo sharci darro ah oo lagu dalbanayo magaca doorasho. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay cadeynaysaa in aan la aqbali karin hanaan kasta oo sharci darro ah, qasab iyo weliba musuq siyaasadeed ku salaysan laguna daboolayo magaca doorasho ayaa lagu yiri nuqul kamid ah bayaankani ka soo baxay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay si degdeg ah u cambaarisay doorashadii sharci darrada ahayd ee maanta lagu qabtay magaalada Beledweyne taasoo dhab ahaan fal sharci darro ah iyo weliba ismagacaabid hore loo sii qorsheeyay kana hor imaanaysa dhammaan heshiisyadii golaha wadatashiga qaranka xeerka doorashada iyo weliba dastuurka dalka isla markaana aanan ka turjumaynin rabitaanka shacabka Koonfur Galbeed. waxaa si cad u muuqda in waxa dhacaya aan ahayn doorasho xalaal ah balse ay tahay isku day qaawan oo lagu marin habaabinayo hanaanka dimuqraadiyadeed laguna meel marinayo natiijo hore loo sii go'aamiyay habraac 24 saac gudahood lagu soo afjaray oo ka fog hubnaanta tartan xor ah iyo sharciyada loomana aqoonsan karo doorasho waafaqsan dastuurka iyo nidaamka dowladnimo ee dalka. talaabadan sharci darrada ayaa waxa ay si toos ah uga hor imanaysaa mabaadi'da sharciyadeed ee hagaya geedi socodka dowladda dhisidda dalka. sidoo kale waxa ay sii xoojinaysaa tabashooyinka muddada dheer ee ka jira Koonfur Galbeed waxayna dhaawacaysaa dadaalada dib loogu heshiisiinayo iyo dimuqraadiyeynta dalka. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay cadeynaysaa in aan la aqbali karin hanaan kasta oo sharci darro ah, qasab iyo musuq siyaasadeed ku salaysan laguna daboolayo magaca doorasho ayaa lagu war-saxaafadeedkani. hoggaanka sharciyadiisa sugan tahay waxaa kaliya ka hor iman karaa rabitaanka shacabka oo lagu muujinayo hanaan xor ah oo hufan xalaal loo wada siman yahay. dowladda federaalka Soomaaliya waxay mar kale ku adkeysanaysaa sidii ay uga go'an tahay difaaca dastuurka, ilaalinta nidaamka federaalka iyo weliba hirgelinta doorashooyinka xor iyo xalaal hufnaanta kana turjumaysa rabitaanka dhabta ah ee shacabka Soomaaliyeed. falcelin xooggan ayaa ka dhalatay dib u doorashadii Cabdicasiis Laftagreen. falcelin aan caadi ahayn ayaa ka dhalatay dib u doorashadii madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagreen oo maanta xildhibaanada maamulkaasi ay ku doorteen Beledweyne isagoona helay 66 cod sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka. xubnaha mucaaradka ee Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweeyay doorashada iyagoona taageero u muujinaya Cabdicasiis Laftagreen xilli dagaal siyaasadeed oo culus uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa u hambaliyay Laftagreen waxa uuna ugu baaqay in uu sii dardargeliyo shaqooyinka hor yaalla ee maamulkaasi. hambalyo iyo duco ayaana u diraynaa madaxweynaha dib loo doortay dowladda goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. hoggaanka la doortay Koonfur Galbeed waxaa hor yaalla dardargelinta dib u heshiisiinta dadka Koonfur Galbeed, dhamaystirka xoreynta deegaanada ku jira gacanta argagixisada iyo weliba horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dadweynaha ayaa lagu yiri qoraal uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo saaray. sidoo kale madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isna bogaadiyay doorashada Koonfur Galbeed oo maanta lagu soo doortay madaxweynaha iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka isagoona sheegay in doorashadan ay meesha ka saarayso xaaladii taagneed. waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxda dib loo doortay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan madaxweynaha dowlad goboleedka oo dib loo doortay waa Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen iyo weliba gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed mudane Cali Saciid Fiqi. doorashada Koonfur Galbeed ayaa waxay meesha ka saaraysaa hubanti la'aanta siyaasadeed hay'adaha maamulka waxaana sidoo kale ay ugu baaqayaan maamulada kale ee muddaxileedkooda uu dhamaaday in si degdeg ah ay u qabtaan doorashooyin heer dowlad goboleed si looga baxo farqiga maamulka loogana hortago xasilooni darrada baahsan ee saameyn ku yeelan karta amniga qaranka ayuu isna yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu hambalyo u diray isna madaxweynaha dib loo doortay Cabdicasiis Laftagreen iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka Cali Saciid Fiqi. mar kale ayaa niilo doortay hoggaanka dowladda Koonfur Galbeed waxaana sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabelle ugu baaqaya in si degdeg ah ay doorashooyinka dowlad goboleedyada si waafaqsan dastuurka dalka iyo weliba dowladda goboleedyada dalka ay u qabtaan. dhanka kale Fahad Yaasiin oo ah agaasimihii hore
hay-adda nisa ayaa isna hambalyo u diray doorashada koonfur galbeed waxa uuna u rajeeyey madaxda dib loo doortay inuu allo u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo idmaday. waxaan hambalyo u dirayaa guddoonka golaha wakiilada ugu horeeya doctor cali saciid fiqi weliba madaxweynaha dib loo doortay ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareena. allaha idinku asturo xilka culus aad u dhaarasin ayuu yidhi Faad Yaasiin. Axmed Cabdishakuur Warsame ayaa isagana hambalyo iyo weliba bogaadin u diray hoggaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo in ay mudnaanta siiyaan wadahadallada soo celinta kalsoonida shacabka. waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha weliba guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed waxaan ugu baaqayaa in ay mudnaanta ay siiyaan wadahadallada soo celinta kalsoonida shacabka iyo hogaaminta hanaanka loo dhan yahay oo lagu xaqiijinayo nabadda iyo weliba xasiloonida xildhibaanadu ayuu yidhi. daawadayaal inta ayaan kusoo koobaya wararkeena daawad hadduu muuqaalkan kusoo gaadho subscribe share like comment daawashada aad daawatanay waad ku mahadsan tahay.